inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. waxaa maanta aas qaran loogu sameeyey magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal fanaanadii weyneed ee Aamina Cabdilaahi Xirsi ee ka mid ahayd hobolladii waaweyneed ee fanka Soomaaliyeed, waxaana ka soo qayb galay aaskan qaran ee marxumadda loo sameeyey bahda dhaqanka, xubno ka mid ah golaha wasiirada Somaliland iyo weliba sidoo kale madax dhaqameed, aqoon-yahan iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. waxaana ugu horeyntiiba halkaasi tacsi tiraanyada ka diray xubno ka mid ah golaha wasiirada Somaliland iyo weliba sidoo kale abwaano iyo fanaaniin. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. waxaanu goobtan tacsida isugu nimid inaanu halkan ka tacsiyadeyno fanaanadii weyneyd ilaah baa weyn ee ummadda Soomaalidu wada taqaanay, Aamina Cabdilaahi Xirsi oo ay teedii noqotay. sida la wada og yahay waxay ka mid ahayd dadkii tiir dhexaadka u ahaa fanka Soomaalida meel kasta ha joogeen. aniguna waxaan ka mid ahaa dadkii dhallinyarada ahaa ee markaan la soo kulmay markii ay calan wanleynaysay ama xidigta kooxda waa beri ka mid ahayd iyo riwaayadaheedii. intii dambana waxay ku jirtay cibaadaysi iyo xaj. ilaahay waxaan uga baryaynaa in dhammaanteen samir iyo iimaan Allahna ka siiyo, caruurteedii iyo caa'iladeedii samir iyo iimaan Ilaahay ka siiyo, ummadda reer Somaliland iyo gobolka Awdal gaar ahaanna Ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo. ilaahay jannooyinka kuwada ugu sarreeya in Ilaahay ugu deeqo. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. كل نفس ذائقة الموت. waxaan leeyahay waxa weeye tacsitii dhalinyarada u dirayna maanta waxa weeye marxuumad Aamina Cabdilaahi Xirsi oo ahayd fanaanad weyn oo la wada garanayo Ilaahay weyne. fanka ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed iyo dhaqanka waxa weeye aad loogu yaqaanay. waxa weeye kooxihii waaberi iyo riwaayadaheegii iyo intii hore ee sida uu wasiirku sheegay iyagu masraxiyadahaasi goobjooga u ahaana waxa weeye way garanayaan inteennii dambena waxaynu ka garanaynaa saamaynta iyo heerka ay ka taagnayd inaynu dib u aragnay ilaa imika ay tahay waxa weeye mid ka mida duruusta inta fanka ku abtirsata meelaha ay ka qaataan. Aamina Allah u naxariisto. waxay intan dambe ka mid ahayd waxa weeye bahda wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta. Xirsi oo maanta aan ku aasayno kullu nafs daa'iqatul mawt, naf kasta oo bini aadan wada dhamaysan geerida. runtii waxaan ka tacsadeenaa qaranka Jamhuuriyadda Somaliland guud ahaan, gaar ahaan qoyskeygii iyo maxaa la yiraahdaa wasaaradda warfaafinta iyo bahda fanaaniinta. dhammaanteen qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waxa ahayd qof weyn baa ka baxay sanad maanta. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. maanta waxaan joognaa tacsida, waxaan magaranaysaa u diraynaa tacsi dhammaan qoyska marxuumadda Aamina Cabdilaahi Xirsi. Allah yarxamo, Ilaahay u naxariisto, Ilaahay dambigeygii ha dhaafo, aakhirana waxa weeyaan jannada ku arsaaqo. dhammaan qoyska ma garanaysaa ay ka baxday iyo ummadda Soomaaliyeed iyo degmadaba waxaan leenahay samriye iibaan. ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu jannaadkiisa iyo nicamkiisa oo maalin baraka leh oo qabow oo hadhka maanta aan joogno hala midana Ilaahay waxa weeyaan jannada ku siiyo. الله يرحمه. إننا إليه راجعون. waxaan maanta halkan aan nibinay aaska qof qiimo leh, qof sharaf leh, qof karaamo leh, qof dadkii Ilaahay ummadda Ilaahay waa markhaatiyaashii Ilaahay adduunyada joogay ay wada marakaceen, qof wanaagsan oo adduunyada intii joogtayna wanaag ku soo kordhisay. aakhirana Ilaahay loo wada rajeynayo in meel fiican iyo maqaam fiican iyo Ilaahay u marti sharaf leh ka dhigo oo uu jannada kula rafiiqay Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam. waxaan halkan tacsiyaan uga diraynaa qoyskeedii, qoyska aadka u ballaaran. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. kullu nafsin daa'iqatul mawt. Aamina Cabdilaahi Xirsi ilaahay ha u naxariisto. qof weyn bay ahayd, Soomaali oo dhan taqaanay, meelo badan ka soo shaqaysay, Jabuuti, Xamar, Hargeysa, meel kastaba. waxa weeyaan ninba maalintiisu dhiman. wuxuu Nabigu calayhi salaatu wasalaam laba wacdi baan iniga tagu yiri, laba mid uu hadlayaa midna waa aaminsan yahay.
qur'aanku uu hadlaya saayeela waxa ka taga waxa malakul mawdkuna uu aamusan yahay waxa weeyaan inteena deen galabta waa gobolku inoo wada dhici doona in kala warmahayno maanta waxa weeyaan taariikhdeedii adduunyo laga warrama waxa macna ma leh waxa weeyaan ducaa wax ugu yaala ilaahay ha u naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun eebe ha u naxariisto aamina cabdilaahi xirsi dadka magaca iyo maamuuskaba kule dhulka Soomaalidu ay degto iyo wadamada Soomaalida oo dhan bay ahayd geeridu waa xaq oo maalinteedii bay noqotay halkan aynu joogno oo carragaranuug amaba tuur qaylo ah xabaalaha Boorama waqooyigeeda ayaa uu maqaamkeedii rasmiga ah iyo hooyigeedii noqday aamina waxay ahayd hooyo qiimo badan hooyo dadka ururisa hooyo hareeraha laga joogo dadkii magaca lahaa ku soo halgamay xagga afka iyo maansada iyo suugaanta ayay ka mid ahayd aamina cabdilaahi xirsi ee baha u naxariisto waxay ku dhalatay goolkii kala baydh degmada Gabiley halka iyadoo ku barbaartay waxay tagtay Djibouti horaantii 60maadkii ayay ka soo bilowday fanka magaalada Djibouti ee xarunta jamhuuriyadda Djibouti aamina iyadoo inay yara ayaa halka ay fanka kaga soo biirtay waxay halka isku guursadeen Cabdi Aadan Xaad Cabdi Qays oo abwaan weyn oo Soomaaliyeed ah dadkii fanka ay ku bahoobeen koow ka ahaa Cabdi Qays aamina waxa uu dhashay laba caruur oo caan iyaguna noqday Mustafa Cabdi Qays iyo Ayaan Cabdi Qays kadib 67kii hilaad ku beegan aamina waxay u soo wareegtay magaalada Hargeysa oo hooyadii fanka Soomaalida ahayd marka Boorama laga yimaado oo halkii uu ka bilaabmay bilwado ahayd halka aamina fanaanintii waa bari oo marka ahayd fanaanintii radio Hargeysa ay qayb ka noqotay waxay noqotay qof heesa oo cod wanaagsan qof wax matasha oo la jecel yahay qof hadal cad oo aad ay fanaanintu ugu hirato lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maanta oo taariikhda la soo sheegay 20kii bishii 3 2023 waxa aan dul taaganahay xabaashii aamina cabdilaahi xirsi allah u naxariisto aamina ehelkii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee afka Soomaaliga ku hadasha ay ka baxdayna samir inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wa Shucayb Maxamed kan Shucayb Bigays telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada Boorama